iyo mas-uuliyiinta kale iyo bahda warbaahinta maanta oo bisha ay afarahayd waxaan ka dhacay shirarkii soo socday mid ka mid ah sidaad ogtihiin wuxuu soo bilowday 25 bisha hore kadibna waxa waaye bishan maarso ayaa lagu leeyay kii saddexaadna wuxuu ahaa kii maanta dhacay oo bisha afarahayd shirarkaas waxay ka dambeeyeen baaqii prime minister uu soo saaray nabadeed uu soo saaray ku saabsanaa in wadahadal la galo guulo waaweyn ayaa laga soo hooyey wadahadalladaas labadii wareego hore waxyaabaha laga soo hooyey waxaa kamid ahayd in dhacday 19 February laga heshiiyey guddi loo saaray mudaharaadkii iyo arrimihiisa laga wada hadlay sidaad ogtihiin dowladdu waxay qabtay in mudaharaad xilligan uusan ku habboonayn arrimaha la xiriira caafimaadka iyo amniga awgeed ha yeeshee murashaxiintu waxay ku adkaysteen in la qabto mudaharaad dowladda iyadoo tixgelinaysa wadahadallada iyo isfahamka siyaasadda kana soo horjeeda wax kasta oo colaad iyo tension abuuray waxay ogolaateen in mudaharaadka la qabto kadibna waxaa loo gudbay xaggee lagu qabanayo qaabkee wadahadal la galay haddana mudaharaadkii waxa ay dhaheen waxaan annagu dowladdu waxay soo jeedisa goobo fara badan oo amnigeeda la sugi karo oo caafimaad ahaan la ilaalin karo laakiin waxay ku adkaysteen in aysan diyaar ahayn inay ku qabtaan mudaharaad meel aan ahayn meesha la yidhaahdo daldirka haddana mar kale dowladdu arrinkaas way fulisay waxaa lagu raaca daldirka inuu qabto waxaa loo saaray guddi farsamo oo ka shaqeeya arrimahaas oo maantana fadhi yeeshay laakiin farsamadeedii arrimaheeda waa lagu diraa weli lama soo dhamaystirin qaabka ay ku dhici doontana waa wax farsamo ku jira amniga sida loo sugayo caafimaad ahaan qaabkaas waxyaabaha marka laga soo gudbiyo caawa shirka loo fadhiyo waxa uu ku saabsanaa codsi ay soo gudbiyeen murashaxiintu oo ku saabsan in lagu daro madasha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexaysa inay fadhigaas ka qayb galaan oo waxyaabihii lagu heshiiyey 12 December iyo 16 hadeer Baydhabo in ay rabaan fadhiyadaas inay ka qayb galaan oo madasha lagu biiriyo arrinkaasi sida adogtiin saacada dheer ayuu qaatay arrin ay dowladdu ama xukuumaddu mas-uul ka tahayna ma aha waa arrin u yaala maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo haddii la furayo iyo haddii aan la furayn iyo haddii dad lagu biirinayo haddii kale go-aankeeda aysan dowladdu aysan xukuumaddu iska lahayn marka arrintaasi ayada ah ayaa waqtigaa ku qaadatay ayaguna ku adkaysteen ilaa in la furo xukuumaddan iyo prime ministerku hogaaminayna ay sheegeen inaysan hawshaasi hawl u taalla xukuumadda aysan ahayn taladeeduna aysan ka go'in horena aysan u dhicin in la furo madalihii ka horreeyey tanuna in furitaankeedu aysan xukuumaddu shaqo ku lahayn arrinkaas ayaa runtii daaha faraha badan keenay si kasta waxaa la isugu dayey oo prime ministerku dulqaadka uu muujiyey waa dareemi kartaan caawa 8 diiwaanka fadhiisana ama 2 saac sida loo yaqaan haddana waxay maraysaa saacad adigu 3 habeenimo ama 9 saac habeenimo waa saacado dheer oo ilaa 7 saacadood ah intaasina waxaa la isku dayay in laga qanciyo in madashaas furitaankeedu uusan hawl xukuumaddu leedahay aysan ahayn laakiin xukuumaddu ay diyaar u tahay wixii ku saabsan amniga doorashooyinka in la qabto waxyaabaha uga aadan ee xukuumadda waajibaadkeeda ah inay diyaar u tahay sidaad ogtihiin doorashada qabashadeeda xukuumaddu waxa waaye waxyaabaha ay ka dhigayso hortiminta ay siinayso hadda kor lala socdaan prime ministerku inuu yidhi isagoo la taagan madaxweynayaasha dowladgoboleeda qaarkood inuu yidhi inay bilaabato inuu jeclaa inuu safarro u galay ha yeeshee bilaabashada doorashada iyo waxqabadkeedu waa hawl aan xukuumaddu runtii aysan carqalad ku ahayn oo meelo kale laga carqaladeynayo taasna waxaan filayaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan aad iyo aad ay u yihiin intaa waxaa dheer baaqii prime ministerku jeediyey ee wadahadallada ku furmeen weli waa sidiisii gogosha waa fidsan tahay wadahadal siyaasadna sidiisa hal maalin laguma goyn karo wareegyo badan uu leeyahay dulqaad iyo sal adeeg fara badan uu u baahan yahay
xukuumaddu waxay diyaar u tahay in ay u dulqaadato loo sal adeego waqti la siiyo wixii wareeg lagu xallin waayo wareegyo kale loo gudbo ayay diyaar u tahay ma aaminsan annagu in wada hadalku sidaa ku xirna waxaan aaminsannahay in fursada weli jiraan lana sii wadi karo ayna tahay sida siyaasaddu wax u baahan sabar iyo dulqaad iyo sal adeeg dheer oo aysan ahayn wax hal habeenka laysu yimaado isla habeenkaa la go-aamin karo marka kale waxaan ku baaqaynaa murashaxiinta iyo inta kale oo siyaasadda danaynaysa in xukuumadda albaabyada furan yihiin wadahadalkii halkiisa laga ambaqaadi karo waxyaabihii laysku gefe la sii wadi karo waxyaabihii bislayn u baahan ee oo weli aan la bislayn karo ayaan ugu baaqaynaa bulshada soomaaliyeed oo runtii ku diirsatay wadahadalka iyo baaqa bariya ministerka iyo dowladda guud ahaan iyo wadahadal ku diirsatayn waxaan markale ugu baaqaynaa in ay cid alla ciddii wadahadalka ka muujisa cagajiid inay culays soo saaraan lagu soo dhiirigeliyo mar labaad iyo mar saddexaadna waxa waaye waxaan ku soo celinaynaa wadahadalka iyo baaqa nabadda ee bariya ministerku hogaaminayo inuu sidiisi yahay habeen iyo maalin aanu dhafrayno gacmaheenu furan yihiin wax kasta oo danta soomaaliyeed ku jirtani si wada hadal ah si degan ismaqal laab furan iyo qalbi furan iyo maskax furan inaan kusoo dhaweynayno aada iyo aada waa mahadsantihin